guud ahaan wada ognahay haddii aan dakhli jirin dakhli la'aan waa horumar la'aan hal ku dhagiyo aynu hore u isticmaali jirnay baa jiro dakhligu waa dawladnimo dakhli la'aanna waa horumar la'aan aynu isticmaalaynay marka tii annagoo ka sii xoojinayna 17 bilyan iyo 600 milyan oo qorshaysnaa sanadka marka laba loo qaybiyo qorshaha 6 bilood wuxuu noqonayaa in 8 bilyan iyo 800 milyan laga soo kala ururiyay guud ahaan deegaankeena dakhligaas 6 bilood markii aan qiimeyntii hadda ugu dambeysay warbixinta waxqabadka xukuumadda iyo warbixinta waxqabadka xafiiska la qiimeeyay waxa lagu guuleystay oo la soo saaray dakhli dhan 8 bilyan 355 milyan oo boqol ahaan noqonaysa boqolkiiba 95% dakhligii qorshaysnaa 6 bilood hore sanadka ama sanadka bartankiisa inuu soo baxay taas waxay muujinaysaa in ka soo reyn fiican iyo dadaalo fiican ay jiraan oo hay'adaha kala duwan iyo muwaaqirka dawladeed kala duwan ay noo jira ay dadaal badan muujiyeen waxaan isleeyahay dadaaladaas inta faraha badanna marka laga tago xafiiska shaqooyinkiisa caadiga ah ee uu idmanaa uu qabanaya marka laga tago taakulayn iyo dabagal badan iyo barbaristaag aan xukuumadda ka helnay oo heerarka kala duwan ee dawladdu ay ka helaan haday noqon lahayd degmo iyo magaalo ayuu dakhligaasi ku hirgalay waxaan qiyaasaynaa marka in ay ididiilo fiican ay noo noqonayso sanadkan weli qorshaheeni maynaan gaadhin markaad eegto awoodda dakhliga deegaankeenu leeyahay markaad eegto awoodda dhaqaaleed deegaankeenu gacanta ku hayo iyo waxa aynu soo ururinayno maaha wax isku dhow dhaqaale badan baynu u baahannahay baahiyaha ummaddeenu ay qabaanna waa baahiyo fara badan si baahiyaha looga jawaabo weli shaqooyin badan baa inoo dhiman laakiin hadda warbixintan aan idiin sheegaynaa un waa 6 bilood wixii inoo qorshaysnaa iyo wixii ka soo baxay haddii aan intaa kaga soo tagno 6 bilood wixii inoo qorshaysnaa iyo wixii kaga soo baxay halkii dakhligan ka soo kala baxay dakhligan meelaan ku kala qorsheynay oo golaha baarlamaanka markii uu ansixinayay iyo golaha fulinta deegaanku bay ansixinayeen qoonda dakhli baa jirtay oo degmooyinka gooni u saarneyd maamul magaalooyinka gooni u saarneyd xafiiska heer deegaanna gooni u saarneyd haddaynu taa kala eegno dakhligaas 8 bilyan iyo 800 milyan ah dakhli 1.7 bilyan ah wuxuu saarnaa degmooyinka deegaankeena 1.7 bilyankii waxaa ka soo xarooday 1.926 bilyan oo ka dhigan boqolkiiba 109% halka waxaad arkaysaa in degmooyinku dadaal badan ay muujiyeen qorshihii loogu talagalay 9% oo dheeriya ayay keenaan marka dadaal badan bay ay degmooyinku geliyeen oo ay soo saareen markaan saaleenahay degmooyinku isku wada mid maaha degmooyin dadaal badan geliyay oo boqolkiiba 40 gaari meelaha qaar kood baa jira degmooyin gaabinayaan way jiraan laakiin tan hadda aan ka sheekeynana waa aggregate-kii ama overall-kii qabsoomay maamul magaalooyinka kale 6 bilood waxaan ka rajeynaynay inay noo soo xareeyaan dakhli dhan 1.2 bilyan dakhli ah 1 bilyan iyo 272 milyan waxa soo xarooday 977 milyan boqol ahaan waxay noqonaysaa boqolkiiba 76.83% marka halka waxa ku muujinaysaa in waxoogaa hoos u dhac uu ka jiro maamul magaalooyinka laftooda ay si kala duwan yihiin maamul magaalooyin dadaal badan muujiyay baa jira maamul magaalooyin dhexdhexaad jira maamul magaalooyin inay xoog badan saaraan 6 bilood qorshahooda gaadid waayintaanka ay gaari waayeen iyo qorshaha soo socda 6 bilood ee dambe sanadkan ah inay gaadhaan aan u baahanahay baa jiro iyaguna shaqooyin aan gadaal marka dambe ka xusi doono waxa kale oo jira xafiiska heer deegaan oo kale markaan dakhliga kala saarno 5.7 bilyan in la soo ururiyahay waxa la soo ururiyay 5.459 ama 5 bilyan iyo 459 oo u dhigmaysa boqolkiiba 95% marka taasi waa xafiiska heer deegaan isku darkoodu marka 6 bilood dakhliga ay nooga baahnaa 8 bilyan iyo 800 buu ahaa waxay noo soo xarooday 8 bilyan 355 milyan 680 kun 577.43 boqol ahaana waxa ka dhigaysaa boqolkiiba 95% qoondadii dakhli ee deegaankeena saarneyd 6 bilood ee ugu horeysay inay noo soo xarootay marka arintaasi waa arin fiican oo dadaaladii faraha badnaa xafiiska iyo xukuumadda iyo muwaaqirada kala duwan ee dawladdu ay sameeyeen ay natusayso dadaalkaasi inuu yahay kama dhigna marka in shaqada aynu qabanay aynu boqolkiiba 100 ay tahay shaqadii aynu u baahnayn shaqooyin badan baa dhiman oo loo baahan yahay in la qabto deegaankeenu baahiyaha horumar meel kasta marka tagtaan jira way badan yihiin marka baahiyaha horumarineed ee jira si aynu u fulino waxaanu u baahannahay inaan awood saarno dakhliga deegaankeena marka inta kaga soo tago 6 bilood hore shaqooyinkii noo qabsoomay
waxaan rabaa inaan yar dul istaago saddex laba qodob oo aan isleeyahay waxaa ugu muhiimsanaaye in la yar caawiyo iyaguna inay muddada yar kooban ay shaqada noocaasi noo qabto. waxaan isleeyahay dabagallo kala duwan ayuu xafiisku ku sameeyey muddadii labadii rubuc ee ugu horeysay, rubucii koobaad kii labaad, meelaha kolba hadba aanu aragnay in gaabisku ka jiro, in tiimam farsamo yaqaana ah oo xafiiska ka tegaya oo la soconaya shaqadu dee qaabka u soconayso iyo taageero ka siinaya meelaha goldolooyinku ka jirana buuxbuuxinaya. waxyaalaha kale isleenahay waxaan xooga saarnay waxaa kamid ah in aan xooga saarno arrinta la xiriirta casriyeynta nidaamka ururinta dakhliga. weli waxaynu u baahannahay dadaal badan oo intaasi inaguma filna, waana qodobada guud ee la iskula qaatay si dakhligeenu sidii loogu talagalay uu soo baxo, inaynu xooga saarno inaynu casriyeyno nidaamka ururinta dakhligeena oo deegaankeena guud ahaan. deegaanka waa deegaan ballaaran, infrastructure-ku marka la barbar dhigo deegaanada kale dalka uu ka hooseeyay oo muddooyin badan oo 30 sano aan dhaafnay, adeeg badan oo dadka ay gaadhaan ay ahayd, oo wadooyin ahayd, oo isku xidh ahayd ayaan inta badan jirin. marka taasi waa laga yaabaa inay marka qaarkood ay gaabis ku keenayso, laakiin haddana dadaalku waa socdaa, waa badan yahay. arrinta marka laga tago waxyaalaha kale ugu muhiimsan ee isleenahay way jireen waxay ahaayeen in qiimeyn joogto ah. inta badan dakhligu waa wax u baahan in la qiimeeyo si joogto ah, in marka degmooyinka iyo magaalooyinka aanu qiimeyn joogto ah inta badan aanu ku wada jiri jirnay, ama si fogaal aragaha la isku arko oo conference video conference la tago, ama tiimamka halka jooga xogaha noo soo dirayaan iyo tiimka halkan heer deegaan lagu qiimeeyo ay noqoto, ayaan isleenahay waxyaalahaas aan ugu muhiimsanaa. arrinta kale ugu muhiimsaneedna waxay ahayd in aynu xooga saarnay inaynu inta badan dakhliga deegaankeena uu noqdo dakhli qaab sharciyeysan loo soo ururiyay. markaan saa leenahay bayaanaad jira, xeer nidaamyo jira, awaamiir baa jirta. awaamiraha ay golaha baarlamaanka bayaanada ay golaha baarlamaanka ansixiyeen iyo xeer nidaamyada golaha fulinta deegaanku ansixiyeen iyo awaamirta xafiiska ka soo baxdaba inay inta badan ay noqoto kuwa lagu shaqeynayo ee shaqada ugu badan inoo qabanaysa. marka haddii shuruucaha iyo nidaamkaasi oo laisku wada daray loo wada raaco, waxay ka dhigan tahay wax badan baa inoo hagaagaya. marka inahaas waa inaha aan isleeyahay 6 bilood hore shaqo ahaan xafiis ahaan way u qabsoontay, guud ahaan deegaankana way u qabsoontay. dadaal badan baan u sii baahanahay oo deegaankana